شعب Soomaaliyeed su'aal is weydiinayna marka shacabku markay dadkaan ma idinku soo ordaan ma soo idinka ordaan taas qiyaastiina di shacabka Soomaaliyeed idinku soo ordaan waxaad tihiin astaantii iyo indhihii ummadda Soomaaliyeed hadday idinka ordaan waxaan u baahannahay aniga idinkuba inaan shaqadeena dib ugu laabano qiyaasta shaqada aan hayno inay wanaagsan tahay in kale shacabka Soomaaliyeed la weydiinayo haddii jawaabta shacabka Soomaaliyeed ay tahay mid ka duwan tan anagu aaminsanahay iyaga naga saxana naga khaldan taas waa mid waxaan idinku amaanayaa aan aad ugu bogay hadda warbixintii aad bixisaan wax aanan dadka kale ku arkin oo ah agabka aad haysataan oo dhan inuu idin xisaabsan yahay أنا الدنيا مركان لا حريرو وحيابا أول بدنا رنتنا لكل لا آمين
aamin darrada ammaanadu waa muhiim waa ogahay in dad badan oo idinkeedin ka mid ah ama kulligiin aad dalkan usoo dhimateen oo usoo khatar badan usoo gasheen oo usoo dadaasheen waa ku ammaanantiin laakiin waa inaan ballanteenu ahaato dhallinyaradii 20kii xoogaa kun ahayd oo imtixaanadooda awaardiiseen sida sharafta lana aduga amnigooda u sugteen maxaad u haysaa oo intan ka badan waa inaan su-aashaas ballanteenu waa inay su-aashaas maxaa loo haayaa dhallinyaradaas mustaqbalka waddanka iyaga maxaa u tari karnaa maxaa rabtiin inaa uga tagtaan labo jiilkii idinkaga horreeyey oo madaxdii booliska soomaaliyeed ahaan jirtay waxay soo sameeyeen waa la arkay weyna yaalli idinku maxaa rabtiin jiilkii idinka dambeeya inaa uga tagtaan muxuu shacabka soomaaliyeed idinka aaminsan yahay ma idinku soo ordaa mase waa idinka ordaa haddii su-aashu ay tahay shacabku inuu idinka ordo ama kulligeen haddaan xuquuq dawlad ahaan nahay naga ordo aamin la-aanta awgeed waxaan codsanayaa inaan dib isugu noqono annaga xukuumad ahaan iyo idinka ka boolis ahaan sababtoo waxaan la xallin karin ama la sixin karin male haddii laa yidhaahdo sida uu taliyo codsaday ama kulligeen aad codsateen waa idinla shaqayn doonaa haddii laa yidhaahdo xuquuqdiina waa idinkala shaqaynaynaa waajibaadkiinana waa idinkula xisaabtami doonaa waana maanta